kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba meel walba oo aad joogtaan iyo si walba muuqaalkeena idiin soo gaaraya halkani waa Somali Freedom kusoo dhawaada muuqaal kale oo cusub oo kamid ah muuqaalada taxanaha inoo ah oo maalin walba aan mowduuc iyo warbixin gaar ah aan idinku soo gudbino waxaanu eegnaa xulashooyinka mowduucyada mudan in la soo bandhigo iyo sheekooyinka xiisaha leh ee daahsoon oo dadka ina daawanaya aanu isdhihi karno alla ilaahay way ku quman tahay inay wax badan oo aysan ogeyn ka ogaadaan waana sababaha inagu kalifo inaanu raadino xog daahsoon iyo muuqaal xiiso badan oo saaxiibada inagu xiran aanu isdhihi karno way raali gelin kartaa waxaanu ku soo qaadan doonaa oo mowduuciyaga uu yahay dooro 10 meelood ee ugu fiican dalxiiska adigu shakhsiyan xagee dooran lahayd malaha waa isweydiinaysaa arrintaas ayaanu eegaynaa oo aanu soo gudbin doonaa waxaa barnaamijka igala qayb galaya oo dabcan ila joogta waan rabaa inaan aad uga mahad celiyo waqtigeeda khaaliga ah Farxiye Cabdalla Muumin oo waqti hore ay sukaayo dambeysay Farxiye mar kale kusoo dhaweynaya aad iyo aad Ciidruus Maxamed Iimaan aad baan ku salaamayaa adiga iyo inta kale ee shacabka ay kugu xiran waqti dheer kadib inaan soo wada fariisanana aad aan ugu faraxsanahay sanad baa la ismoogayaan filaya waqtiga ma horta aad buu u socdaa Soomaa aad iyo aad waqtigu u daya marka jaahada sanada ku soo wareegtay intaan is arkin wax wada qaban marka laakiin waxa la yiri macna wixii nool adduunyada kulay dib baa la soo arkaya horta si kasta aad wixii nool adduunyada marka Farxiye soo dhawow waa dhawahay mowduuca bal sawarta wallahi horta barnaamijyada horta waan daawadaa aad marba meelan nageysaa maalinba meelan ugu casuuntaa maanta u socotay aniga marti ku ah soo dhawaada aad baanan horta ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo barnaamijkan tan kale runtii xiiso gaar ay leedahay marka la weeraahdo bal meelaha dalxiis u tagi leed qof walba hamiyu leeyahay wuxuu ku haminayaa in maalin uu meel uu jecel yahay uu booqdo ama meelo uu rabo inuu dalxiis ku tago haddii qorshihiisa dhow aysan ku jirin laazim qorshihiisa fog way ku jirtaa inuu meel shaas uu dalxiis u tago marka aniga de maanta riyooyinkayga qaar ka mid ah daalka ka soo bandhigo waan ku faraxsanahay meelaha dalxiis u tagi lahaa oo qalbigayga ku jirto dad igu dooqana way dhici karaan dad qaarna waxa laga yaabaa inay isdhahaan warfaxin maxay meelaha u dooratay dad badan inay dhaan ama dad fikirkooda marka hore aysan ku jirna markaan de meesha aan sheego inay ka heli doonaan meelo badan oo qalbigayga ku jira oo aan jecelahay navigation mankaada ka gooxaya jiraan horta dalxiisku waa wax jiro la isku raacsan yahay dabcan aadamiga oo dhan baa ka midaysan intooda ugu badan waana wax waqti dabcan nafta mar baa jirta ruuxda waqti lala qaato oo jawiga dabcan cakiran ee shaqo iyo waxbarasho mararka qaybtood aad uga hayaamayso marka dalxiiskuna dabcan waxyaabo kala duwan oo qiimo leh buu kulansadaa waa sababta meelo gaar ah dalxiiska loogu sameeyay marka yaynaan hadalka dheerayn Farxiye arrinta ugu horeysa way horta waa 10 su'aalood sida ku cad dabcan mowduuca guud dooro 10 meelood ugu fiican dalxiis aad u tagi lahayd shakhsiyan bal su'aasha koowaad ama dabcan number 1 Farxiyo xagee baan oran karnaa alla ilaahay way tagi lahayd ama way dooran lahayd oo dalxiis ah wallahi horta marka la fiiriyo dalxiis Farxiyo maanta xagee u aad leed marka la dhaho meelo fara badan qalbigayga ku soo dhacaya oo mar walbana aniga riyooyinkayga ay ka mid tahay inaan maalin aan booqdo aan tago marka tiraday ka bateen laakiin hadda itiraado Farxiyo intaad soo kala xusho bal mid kood nagu soo tuuro dalxiis u tagi lahayd aniga Farxiyo maanta oo leedahay Farxiyo ayaamaha sad haysataa waa inaad meesha jeceshahay dalxiis u tagtaa waa jawigaaga ku soo degsataa aad horta waxaan tagi lahaa oo aanan jecelahay inaan mar un tago meel ka mid ah India ajiib aad meel ka mid ah India hadda meeshaas rabnaa inaan maga noo sii taabato si gaar aad marka waxaan tagi lahaa Taj Mahal ajiib dhismo taariikh mugweyn ay ku duuban tahay taariikh mugweyn oo runtii aad looga sheekeeyo lana yiraahdo waa astaantii jacaylka halkaas marka ku weydiinaya ogaa Farxiye jacaylnaysa taageerada meelay jacayl lagu sheego ani la iga war marka waa astaantii jacaylka ayaa la yiraahdaa meeshaasi dhismahaas marka waana dhismo taariikhi oo taariikh weyn ku fadhiyo dadyo kala duwan oo wadamada adduunka ka imaada ayaana u dalxiis tago
waqti badan ku bixiyay in marka ay soo arkaan meesha taariikhda soo marka dadka inaan qayb ka ka noqoto oo taariikhdaas dabcan ku jirta jeclaanaysa waa cajiib lambarka koobaad iyo inaad hindi inaga tuurtay oo Asia ah iyo dhismo gaar ah oo taariikhda dabcan ku suntan ismayaasha ugu quruxda badanna kamid ah runtii iyo astaamaha aad ku xulatay inaad noo sheegtaan aad bay runtii noo xiiso gelinaysaa bal xagga labaad hadda aad su'aasha labaad ama qodobka labaad oo waliba dalxiiska ku jirnaa inta waxa ugu badan ka hadlayna waa dalxiis markaan meesha ka soo dhamaado hadii la yiraahdo farxiyo meel labaad afka aadi oo dalxiis u bax ya ila dalxiis ku jira bogta wax kala maahay wax kala lama hadlayo meeshayda labaad waxaan ka dhigi lahaa Maldives malaha mister waxyaabo badan oo aan eekeysana ma sheegaysaa maanta waxyaabo badan aan jeclaan lahaa waa horan kuugu sheegay because dad badan ayaa isku fikir noqon doona oo maanta maskaxdooda ay ka guuxaysaa in meelaha hadda aan soo sheegay kuwa aan soo wada laga yaabee in aad macnaa isaga adu kulay jasiirada waa ila jeceshahay absolutely ka hadal malaha ka hadal malaha waxyaabaha aan ku jeclaadayna waxa kamid ah sawirro aad u qurux badan oo horta inaba aan caadi ahayn بقفك الدلحيس وآذي أنت هم بوقضبا بورتو كسو قلا والجزيرة جوي دقن وحان إسلاي هميل كاغا في عناية الجزيرة دهان وإنت تقود الحيستو أتصور كسو قشو ووحان كلها هاي أتكسو نسا تمتير لاين مجد لاين إسلاي ده فرحيو ميلاها القوات كله سوجيد الشغل له سيقار بنفتي توجع شح صوت إلهي هذا ميلا قرح بدل ما أنا عاديا حتى عيدروسو هرت ضدك وحنا أنا جسور رضا الشعل ضد حاجرو إني هرتو ميلا مركي تكن بيكتشر إني جلان إيسن معنا بدن وقوف فردين لكن أنا كفرحية أهان هذا وحنا شعل هاي ميل قرحون إن عند الحيس وتجو سببت أن ميل قرحون عند الحيس وتجاي وحكدم بينه حوايه إن أنا بيكتشر قرح بدن أن كسو جلوكيت إيجلا أنا ماشى كسر وأنا طبعا وأنا حسوس ريب بريك قيبتود آدي عديني ساملها فهي إلا هذا هجان كملها قديمي جا قيمها لقرح ذا كهبون إن دلحيس كتكتو روح ذا ندوقت الواقع تحسيسا بالله أرجع نمت صدق حد واحد اوكي متصدحات هرتو wax badan ba isugu kay darsan hadda inta sheegaysan maxaa maskaxdan ka shaqeysiinay mتصدحات ka dhigata because wax badan ayaan haystaa oo hadii ayaan dhacday dalxiisku aanu igama dhamaan doono dad waxa jira markay dhaafaan anigu waa dalxiisay sanadka ayagu dalxiisa laakiin aniga igama dhamaan doono maxaa yeelay marba mar sanadba sanad ay diibi doontaa because meel fara badan maskaxda iga jiro meel waxa jirto aan jecelahay in maalin un Ciidruusow aan dalxiis u tago maalin un aan cagaha dhigo oo ku fikirayso oo caradeeda aan saas hawadeeda u marmaro meeshaas dadka qaar waa laga yaabaa inay yaqaanaan dadka qaarna inaysan aqoonin waa laga yaabaa hadda ogaan doonaan markaan sheegan meesha hadda dadku waan jeclaan laftirkooda inay dalxiis u tagaan oo aniga kaliya inta taqaan aanan ku koobnaanin Socotra cajiib dad badan baa laga yaabaa Socotra markaan dhaho inay dhahaan war tay ku taala jasiiradda adduunka xagee ka taala ma fogo mid fog ma ahan waa Yemen iyo Soomaaliya ay u dhaxaysaa waana dhul Soomaaliyeed cajiib waaba meelaha aad u qurux badan way meesha aad iyo meel aad u qurux badan jasiirad yar oo aad u qurux badan oo dhul Soomaaliyeed ka tirsan aadna loogu dalxiiso baan maalin un ku haminaya dadka reer Puntland laga yaabaa ay qaarkood inay tageen يا مادام أي آد ودوده أنا ضعف dadna waxa laga yaabaa inay maqalkooda ku cusub tahay Socotra laakiin dadka inta badan dabcan juqraafiga yaqaana aad bay yaqaanaan waayahay isla weli arrintan ku guda jirnaa farxiya ay dooro 10 meelood ee ku haboon dalxiiska naftaada ay jeclaan lahayd dadkana ala jeclaan lahayd bal marka afraad meel badan ayaa jira weli oo dalxiisku igama dhamaanin marka haddaan mida afraad eego waxaan tagi lahaa باريس عاصمة فرنسا عاصمة فرنسا هي سببت نراعي هرتو ماشا سوا ميل دديوغا عنكا اي ادرتو قد الحسان وانا محال لها ميل قرحون اسمياشيدو يرا قديمي هين tan kale waxaan jecelahay inaan fadul ahaan u soo arko hadwa fadul waa fadul oo isla mar un bal soo arag muuqaaladeedu way ka habateen meeshan marka buundadan labada qof ee isjecelba markay tagaanba ay qofulkooda ku soo dhagsadaan maaragtay marka meel qoful soo agtay aad qoful ku soo dhajiso inaan ku soo dhagsado laga yaabo ya haddaan la maaro ku baxo
waa fariin kale xasaasi arrintaas aadi haye aadi wax badan oo xasaas aan uga sheegtay Paris runtii dad badan rajeynaya inay fahmaan bal lambarka shanaad okay lambarka shanaad hadda ay tirada xageed dalxiis u aadi lahayd aniga ma is dhibeen tartiibkayga diyaaradeedaan raaci lahaa Philippines aan tegi lahaa dalaq Philippine waliba sababtu maxay tahay Philippine waa wadan horta iska jawgiisu iska degan yahay kale farxiin dheertan waxa sidii ay siqaanaan aniga dad baaba igu sheegay macallina inna yarta ogdahay waa ehelkayga la ay marka madaxaysa socota mas'uulka raadinay والله isku dar marka jasiiradeeda iyo meelaheeda yar ee coolka ee jawiga degan baan ku dalxiisi lahaa marka Philippine dalxiis waan u tagayaa xagga xeebaheedana aad u diyaarsan aad u qurxoon yihiin dhismayaasheeda kaal iska arag waa meel nafta u roon waadi cajab ah haye bal lambarka lixaad ilaa hadda shan ma ka hayna okay lambarka lixaad oo aan de maxay ahaatay rabayba inaan awalku hore sheeg haddana isla bal farxiig u kaadso dib u dhigo aan isdahay waxaa waaye Turkiga ilaa hadda dad ba ka dhaxlaysaa oo waliba hadda dhow aan ka imaaday haddana aan safar u ahay insha Allah Turkiga waa wadan aad u qurux badan wadan islaam ah waxaan ku dhahay leh maxaa la yiraahdaa magaalooyin aad u fara badan ee loo dalxiiso xeebo dadku xilliga saamarka lagama sheekeyn karo dadyowga dunidan ay aad ugu soo dalxiisaan haday tahay cadaan iyo madowba marka Turkiga wadamada qalbigayga ku jira ayuu kamid yahay waan tagay haddana inaan ku sii laabta ayaan rajeynaya laakiin waan tagay waliba farxiyo Turkiga waa meelaha inta badan ee dadku ay jecel yihiin usoo dalxiis tagaan qaalo waali ayuu ka sameeyay 6 sano ugu dambeysay marka laga reebo saameynta haddan ee COVID-19 marka laga reebo aad bal marka todobaad ka soco okay Turkiga haddaan ka imaaday toddobaad hadda i weydiiso inta badan dadku waxay igu tiriyaan wadamadan indha yarta kama dhawaatida la ilaa gowle maxaa ku kala maadaama ay dhahan dadka aniga wadamaha calaamadaystayba Japan isku tuuri lahaa oo dalxiisa hada kullee waa dal kale iyo indha yar kale maxaa jira leeyahay dal kale waaye laakiin Japan waa wadan qurux badan waaye dadkiisuna ay yihiin dad marka waxa lagu sheegay inay yihiin si dadka tagay soo arka ay tilmaamaan dad jawigoodu yaa kaaliska arag soo dhaweynta ku fiican marka horta Japan meel badan oo qurux badan aad maadaama aan ku dhaahadayna sawiro xusuus ina iska reebaan rabaa aad Japan meelaheeda ugu quruxda badan ayaan booqasho ku tagi lahaa yaa iraacay كلي فؤاد بديار وقنقاوي كجربا جابان نمبر 7 bay ku ahayd waa sheegtay sababteeda bal sideed raaci كلي maanta dad badan ba ka dhaxlaysay okay dad badan ay igu dooqa dad kalena way ila yaabayaan marka haddaan isdhaho meesha sideedaad samahan oo aan dalxiis u tagaayo waxa waaye wadan aan wadamo badan ka soo horumariyay laakiin asal laftarkayga qalbigayga ku jiro oo aan isleeyahay maalin u dalxiis Abu Dubai عجيب إمارات كعربت دبي نوا ميل كلو أيضا عجيبة أو القبض عند الدوكسي بقوا عن بعض شيء كان داري هذا دادير بوره هذا عرض ماركت بابورت مركات ساق وكرت ماركت جيل كمارت الباك مركب فروت أبو ساق وبسوق لا عرض السينيس إيجا في أخي ماشات عجيب إن أنتجو وإيجا جوانته صحرا لما دجانا حدنا نقطتين meel kamida meelaha dhaqaalaha dunida iyo ganacsiga iyo dalxiiska runtii hogaaminaya waa isbedel jiro bal sagaalaad ka soco kulay maanta waxba siday sagaalaad wadan waxa jiro asagana qalbigayga ku jiro caadiyan waa loo dalxiisaa dad qaar baa jecel dadkaas anigu ku jira waliba waana laygaga sheekeeyay marka waxaan is alle leeyahay dalxiiskaaga fog ama dhowba kay noqoto ku darso waa Serbia waliba aad waliba waxa soo dhacayo yar asxaab aan nahayo isku mihnadna aan nahayo waa taqaanay Umar Serbia meeshaas baan Serbia ka ilaashada Serbia halkan aad uga salaamayna Serbia ayadana waxaan jecelahay inaan mar u booqdo waa liiga badbadiyay muuqaaladeeda waan arkaa Instagram-ka meelaheeda dalxiiska ah ayadana inaan mar u booqdo waan rajeynayaa Serbia farxiyo sagaal meelood oo cajiib ah oo qurux badan oo midba mid kale aan ka dhicin ba ka haynaa bal lambarka 10aad oo guniga gabagabada ah bal aad okay dalxiiskii aad u socotay wadamadii badan ee aad tagtay ugu dambeyn farxiyo soo afjar marka la yidhaho waxaan ku soo afjari lahaa oo ugu dambeysa Switzerland عجيب
waa dhul kale iyo madal kale iyo goob kale oo aan inaba caadi ahayn fuaad baa hadda ka sheekeynayay Switzerland ha iga hor aadin malaha hadduusan ka hor aadan baa nasiib leedahay aad iyo aad marka 10 meelood oo kala daran baa sheegatay Switzerland aad bay u qurux badan tahay lagama sheekeyn karo qalbigayga ayay ku jirtaa inaan maalin un booqdo oo dalxiis u tago laga yaabo in dhawaan aysan ii suuragelin iyagoo dhan laakiin hadba midkay ii suura gasho baan tegi doonaa inta hadda aan soo sheegay iyo kuwo kaloo ka badan 20 kore u dhaafaya aad iyo aad marka taasna waan rajeynayaa Switzerland inaan mar uun booqdo oo aan ku dalxiiso farxiyay waa maasan tahay runtii 10 meelood oo qurux badan oo dalxiiska ku habboon baan ku weydiinay 10 meelood oo kala daran baa sheegatay Taj Mahal oo Hindi ah ka cajibisay marka oo is dhiilatay inta badan macnaha maankayga ku jireen ma dhicin laga dhaxalashay ay duruus isku dooqaanay fuad waan ugu jiraa macnaha nagama foga marka waa soo gabagabeynayna fariintada ugu dambaysa fariinteeda ugu dambaysa dhammaan asxaabta waxaan leeyahay oo mahadsantiin sida aad ay duruus iyo maxaa la yiraahdaa page-kiisa iyo YouTube-kiisa aad ugu xiran tihiin waxaan idin leeyahay bal meelaha ani aan soo sheegay meel ha lagu qorto marka ku dhan farxiye cabdalla muumin aad baan uga mahad celinaynaa fursadeeda qaaliga ah iyo inay dabcan fadhigan maanta nagu helinaysay iyo inay noqotay qof nagala qayb qaatay 10 mawduuc ama 10 ee dabcan su'aalood oo ku saabsan dalxiiska iyo quruxda fuaad cabdirasaaq gurey ayaan si ballaaran uga mahadnaqaynaa muuqaal duubista iyo hagaajinta muuqaalkan dhamaanteeda isku duban farxiye iyo ciidruus iyo fuaad waxaan idin leenahay isma dhaafno